anigoo ku hadlayo afka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan meeshan ka sheegayaa horta halkaanna waxaana ciidamo gadooda waxaana ka soo gadoodnay baradii aan ku joognay iyo difaacyadii aan ku jirnay waxaan naga soo baxshay difaacyadaynina waxaa kamid ah amba nagu kalifay qaajo jirta awgeed anigu xoogga dalka Soomaaliyeed kamid ah waxaan ka tirsanay in badan dawladda ilaa Cabdullaahi Yuusuf ilaa maanta inta ka dhaxle difaac kama bixin hal habeenoo qura gurigaygu ma hayo ilaa alaanadan dawladdi maanta waxay nagu samaysay wax la midana nama soo marin anigu waa soo marnaan 9 bilood mushaar la'aan maanta waxay noogu dartay 4 bilood inaan mushaar qaadan inaan garan qaadan inaan iidaan qaadan taasuna waxay kalifi kartaa inaan dadkii mas'uuliyadda naga saareed oo shacabka inaan dhacan askari hadduu wax cunay oo xuquuqna lahayn ayna dawladdu maqnayn ayna dalacaad ayna lahayn ayna garaasi ayna lahayn askari wax walba u banaan intaasna ma sameyn waa dul qaadahaynay waa iska dhowrayna xaaraanta dhibaatada aan shacabka u geysayno ilaana wax shacab han u geysana ma jirto maanta waxaan taaganahay codsi iyo tixgelin waaga tixgelin aan wadna 4 bilood aan qabsana markii noogu horeysay oo garaankii iidaankii aan nafta ku ceshayna aaway 9 bilood mushaar weesnayn kama soo ciidamadan ka soo baxay shabeellaha hoose marka laga yimaado waxa kuwa kale ay ka soo baxeen maanta sida aad warbaahinta kala socotay ama ciidan ahaan aad la socotay shabeellaha dhexe ilaa 4-5 deegaan muqdisho ayayna ku soo wajahan yihiin saacadaha soo socda maxaa la fili karayaa marka hadii ciidamadii shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe iyo ay ka soo baxaan oo magaaladeena culays haatan laga soo sheegayo maxaa la fili karayaa taasoo waxa la weydiinayaa mas'uuliyiinta ay shaqayso la weydiinayaa dadka waxa sheegi kara nimanka mas'uuliyiinta ayaa sheegi kara oo saraakiil shacabkuma shaqooyinkaas aniga mid aan leeyahay ma ka hadli karo aniga baxaraysay dibadda way adigu waxaad kamid tahay ciidamada militariga gaashaanle ayaa tahay macallim ayaa tahay gaashaanle sar ayaa tahay afwan tababarana waa tahay waxaad joogtaa Jazeera marka mushaar ma qaadataa waa imisa mushaarka dhammaan dadka lama sheegay laakiin shaqada mushaarkiisa aan ku sheegana yani ma u diyaarsan midna saxaafadda maxaad ugu diidaysaa Soomaaliyeed reer galbeedkaba waa loo qoraa reer galbeedkaba shirkii Brussels hadda waxay dhaheen mushaaraadka ciidankana loo soo gudbiyo niman ajnabi ah ayaa loo ogolaaday in mushaaraadkii iyo sirtii wadanka la siiyo marka saxaafadda maxaad ugu diidaysaan sharciga aniga la soo daray inaan yani aan saxaafad siiyo ama yani mushaarkiisa sheego ama lambarkiisa sheego sharciga militariga oo ay ku dhismataan leeyahay meelaha aad keeni kartaa yani mushaaraadka oo qaataan gaashaan sare qaato meelaha aad keeni kartaa laakiin kan mushaarka kan qaadan ka dhiman waayahay maxaa marka keenay in gaashaanlayaasha sarsare mushaaraadkooda ay qaataan ciidamadana duruuftan ay ku noolaadaan maxaa keenay mushaarkan waa accountable yani faafahintiisa waxa iska madaxda sare generaalka ka maqan yahay adigu askar kaliya ma aha generaal hatta ka maqan yihiin oo accountable waxooda ayaga xagooda aniga ma garanayo laakiinse idan ka hadli kara ma aha faafahinteeda iyo tafatirkeeda waxa iska leh sare marka waxaan u fahmay hadiiba generaal ay ka maqan yihiin gaashaanle sarana ay helayaan ciidamadiina mushaaraadka ay ka maqan yihiin ciidankana 4.5 kii ayaa soo gashay military 4.5 ma waa gartay yabana wadada la tahay hal meel loo magacaaba si wanaagsan military 4.5 shaqo kuma lahan mana soo gelayso mana geer doonto aniga sidaan qabo mid military ah waa meeshii loo magacaabo amar military qaadanaya amarka military-gana waa safe kan kugu dhicina la iska ilaaliya military ma jirto oo maxaa 4.5 waayahay waanu soo laaban doonaa arintan dhinaca kale marka taariikhda fog la eego Abuukar Cabdullaahi Isaaq al-Cadaala waxaad kamid ahayd ciidankii hore ee wadanka waxaad la socotay in ciidankii hore ay dad qab weyn ahaayeen xuduudaha wadanka waad ogeyd waa ciidankii yani lagu guubaabin jiray ninkii dhoof ku yimid bay geeridu dhibaysaa waa su'aal da'weyn dalka yaa iskale waa ciidamadii sidaa la oran jiray geesiga dhulkiisa guusha u horseeda halku dhigidaas ayaad lahaydeen maanta ciidamada Ugandees ah inaad hoos fadhisaan oo ay iska kiin hormariyaan
oo mushaar la'aan aad ka cabanaysaan see kugu dhadhamaysaa horta waxaan kuu sheegaa 1960kii cadowgeena waa naqaanay waa gartay 1977 cadowgeena waa naqaanay laakiin hadda waqtiga la jooga cadowga aan leenahay ma naqaano maxaa dhacay ما نقام بالباب يعني حتى هذا بدك يسوي تشرو هذا يكون سؤال بقول عندك كيان نقام هذا وين كل سؤال بقول كدوات تقول هذا وين نقام لكن هذا هذا وين ما نقام ما درت واسك سعتانون ثم ما نقام هذا وين سبحان الله سقطنا معناها وركه ما ذكري دبرة بالفيل كده يعني هذا عرب تعالوا معك وين ويسي وين وين يعني هذا حتى شابتن او ما يجيبش ما يتدور بديش يجي macnaha waxaan u fahmay waxaad ula jeedaa waaqicii iyo dadkii dawladda noqday iyo wax badan baa isbedelay ilaan Ethiopia ayaa ugu horeysay cadawga ummadda Soomaaliyeed marka la fiiriyo haatan jeneraaladeedii ayaa laga amar qaataa oo 4 dekedood baa la siiyay marka waxaan u fahmay sidaas baan u fahmay aniga sidaas kuma dhihin sida ku dhahay la soo أنا كل سؤال بقول لهم كي عدد أنا البر أنا كل سؤال بالتدريات التدريات أنا البر حبشة مركا عدد يا مكان لكن هذا عدد أن لنا من مكان يا كذا يخرجنا محد عمر كذا العدالة تذكر عقل بيليهين وبني آدم ولبا الصومالي وادد مسلمين سيكون عيسى مركين عدو جودة جرن ويان حتى تذكر دي واشان قرآن كأي شيء يا سوما شكرا marka quraanki ba aan la aqrin si wax u jiraan horta quraanka waa tiirka yani muslimiinta Soomaaliyeed quraanku waa gooni ha ahaatee waxa aan ku sheegay wili maadan ifsaamin ayaga falkooda waxa jirta waxa tiri inay agaandaas iska fiin horumariyaan oo annaga yani dagaalka idinka mid horumariyo waxa soo aragtaa tiri waxaan u arkaa horta wax walba yani anagu waxa aan keensanay waxaan dadkan anaga ka dambeeyay aha annaga maadaama ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aan nahay waxaan u dagaalamayna ay tahay dalka iyo diinta iyo dadka dagaalamayna mana taqaanaan cadowgeena hadda ma naqaan hadda cadowgan leenahay ma naqaan waa gartay luqadaas dad badan baa ku dhageysanaya waan ka soconaynaa shirkii Brussels ka dhacay madaxda dawladda ay ka qayb galeen waxa jira bayaan laga soo saaray dawladda waxa laga dalbaday in ay soo gudbiso liiska iyo nambarada iyo akawnada ciidamada dawladda federaalka ah ra'iisul wasaaraha wuxuu sheegay in ciidamada inta diiwaan gashan mushaar la siiyo oo wax mushaar la'aan la dhigay aanay jirin wasaaradda gaashaandhigga warka ka duwan bay sheegtay waxay tiri diiwaan gelintii ayaa socota wasiirka maaliyadda wuxuu yiri 23,000 oo ciidan ayaan mushaar siinaa marka dawladdiiba haday saas isku baraanbarayso oo saas loo kala hadlayo oo ciidamadii fariimaha ay ka soo baxayaan saxaafaddu way wareersan tahay yaa warkiisa la qaataa aniga madaxda sare inaan farbisto sharciga kudisha banaalaha iyo diidaaya sharciga ciidamada iyo diidaaya madaxda waxay sheegtay oo sheegay hadday been tahay iyo hadday run tahay waxay sheegtay madaxda aniga ma dhihi kari ma beenayn kari been waayo anaa yidhaahdaan soo istaaga marna ma liiga sugaayo madaxda waxay noo sheegaan anagu waa qaadanaynaa hadday wax runa noo sheegaan hadday been noo sheegaan madaxdaan raacsannahay dalkana dalkana waxaan jecelnahay waa wada leenahay ayaga kala wada malaha madaxda العدالة لكن حتى مدحضة هذه أي رن شيئان إيه هذي بين شيئان أنت بوان كوجان سنهي دستورك كم مقارنة بأرنتاس أو كيف كنت دستورك دستورك دكتور نجاتر إذا نك ما مسؤولك كا ما كور كوكنا أدي أنا بين كوشة إنه بين كوشة أنا ما شيء أنا أقول إذا كوشة هذا حي اللي يقول هذا أنا عليه عبد شمكة ترى هذا لما أقول صدق هذا ترى فأنا جينا عاد صدق أنا جينا عاد صدق بحال يعني أنا جينا تأثير بك أنا وعنا إذا يعني وادي الله وادي رسوله يقول الأمر منكم دولة أنه مسؤولين كدولة ذلك حكمته أيان حكمته يعني الله وحده شيئا أنا قادرنا وتكيد بيتنا شيئا وقادرنا أجرنا شيئا وقادرنا فآيات قرآن آيات سوقا تين كسو ملاقر أدي جلسين لكن النصوص توحي شيء معاصي إن لو أديعين هديب مدحضة أي مسلمين يهين وح معاصي إيو إن لو أديعين وأن لو راعين مركدين في أيام الديدية أدو محد الله ده بيننا وانكراعنا رنا وانكراعنا أنا هذا بنا عن كذا المدرسة أسمعها بنا حتى هذا وهذا ماشي إن الله هذا ماشي مفاعل عن المدرسة هذا يبدأ بلا في برنامج كذا مجرنا وحقجرنا برنامج شكرا وحقجرنا يعني شو واحد اللي يذكره مع هذا اللي يغلون كذا برنامج أيام كذا مجرنا
ognahay laakiin adiga ayaa soo qaatay aayad quraan ah adiga ayaa soo qaatay oo dhinacii diintii maaragtay haddana waxaa jira kuma jirno ka soco ugu dambayntii xalka muxuu yahay alcadaala ciidamadu way soo baxayaan shabeellaha dhexe shabeellaha hoose meelo kale xitaa wararna soo gaaray waxay sheegayaan in askartu ay gadood yihiin magaalada muqdisho haatan moobeylada ayaa dadkii laga dhacayaa soobe ilaa kilomitir 13 xalka muxuu yahay adinku waxaa tihiin weliba nimankii ciidamadan tababarayay adinka miyaa ku tababaray in haddii mushaar la waayo dad kala dhaco la dhaco diyaar u leeyihiin mana ku tababarno annaga waxaan shuruucda ciidanka la baraanin ninkan shuruucda ciidankana lama yiraahdo waxaa la dhaco waxaa la dhacna meesha uma jirto sharcigana ma dhigayo ma garata maxaa loo dhacaa marka dadkan wax madarabta dhacayso nin oo hiriisada dhacaya taas waxaa ku fiican in la toogto taasoo kale sharciga in la toogto maxay anaa ku fiican ogaashiisa dhaca oo kufsada taas ma sharciga ma dhigayo waxaad leedahay in la toogto ayaa fiican markii layga aad gudoomiyaha ka ahaydna 13 gabdhood ayaa agtaada lagu kufsaday wax toogasho ah wax talaabo aad qaadayna ma lahan haddana waxaad leedahay in la toogto ayaa fiican marka taas markaan ka hadlo anigu waxaan u gudbiyey هاي محكمة بي أنا متوقن كلمة جرا. واقرت. وحاول بدنا شرع هذا شرع إذا أنا ممكن أفضل الله ما جعله. أي إسكال هدين في ده أنا إذا كنت جرا هدين في ده توقعنا أي في وجه كله بدنا جرا. waayahay gabagabada ayaan soo gaarnay waxaad la socotaa inkastoo aad sheegtay in cadowgiina aydan garanayn dhinaca kale waxaad la dagaalamaysaan oo reer galbeedku ay cadow idinkaga dhigeen dhalinyarada islaamiyiinta ama al-shabaab hadda adinku waxaad leedihiin ciidamadiina qaar xuquuq baa naga maqan weli lama arag ciidan al-shabaab ah oo furmihii ka soo baxay oo oranaya garaamkii ayaan weynay bariiskii ayaa naga maqan mushaar ayaa naga maqan gunno ayaa naga maqan bal naftooda ayay huraan oo iyagoo hadlaya ayaan dhageysanaa mar walba oo sheegaya in naftooda ay ku deeqayaan naftuna aad la socoto waxa ugu qaalisan oo bini aadam uu bixiyo inay tahay adinkana dhanka kale waxaad leedihiin xoogii dalka ayaan nahay bariis yar haddaad weysaan waad qeelinaysaan furmihii ayaad ka soo baxaysaan marka labada ciidan kee marka ah xooga dalka keeba ah طبعا يعني برنامج عن شغل كله هاي الجن ما واحد هنا اخوياهن او حق عيدن هذا وتري الشباب فرموه كما صبحوا الشباب يعني ما غريا نجمع كان يراهدين الشباب أنا ما حكمنا الشباب ديني وعباس يتعلم ما كنا هذه مشاركة عن غالي من كنت سألنا كل شيء يرفع أبناء قبل شيء بسنة مشاركة هذه وحدنا قال هذين مرحبا حتى اللي يوجد تاس ما كنا marka ninka nagaajoonaya banaanbaxaya foodada kicinaya iyo ninkii naftiisa huraya ka waran labadaas nin isku qalmaan bay kula tahay xitaa dagaal ahaan marka la yiraahdo iyo moral madaxweynaha waxa la socota hadda koor wuxuu yiri ciidankeena caqiido ma lahan dabcan sidii ayaana muuqanaysa haatan niman naftooda huraya iyo niman bariis markay waayaan wadooyinka xiraya oo qeylinaya dadina ma maqlay si wanaagsan meesha duurku hadda dalaga shan aniga ana dalaga shan marada ma garan waa gartay anigu ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed aan saddex baxno oo yani مو مديرشية طلبت أبشيدي سو الشباب تبشيدي سو الشباب ينو واش دقالنا دقال كان ملبحين ما هي ما عن هاي الشباب أنا كشف كيا ما عن مشاركة كشف كيا شو كل بس كمرين ما الشباب كمويدين لكن بالعكس أدينك نمن سلاس أحمد دقال مكرتان هدي ما أنت بريد سويسان بعد قيلين إنسان نمن يجي نفتو ظهورية أو وحاس أنا ندن يهلو كجرين ma u babacdigi kartaan waliba hadalkayga marka laga yimaado madaxweynaha wuxuu yiri ciidankeena caqiido ma lahan oo afcad ciidankeena madaxweynaha taasi dhismaha caqiido ma lahan si wanaagsan waxaan ku sheegay Filibiin si waxaan ku sheegay orto yani wax walba oo la sameeyo waxa ugu wanaagsan in ciidanka hogga dalka Soomaaliyeed dalka uu u taagan yahay dalka waa ma garan si wanaagsan dadkiisu difaacaya فرمها يعني مالها حديدها وحجوزة كل منا هنا حيث الدلك الصومالية زي ما قرأت واقرت عينكو يبدأون كرا ويبرد كرا لكن سمعها يعني جبت بشيء سعنا جبت عندهم كرا حديدها إلى برنامج كما تسوي بالجوزة حديدها إلى وحبات كقبل نيسان